kusoo dhawaada fadlan haddaan nagu cusubtiin noo sheergareeya maanta waxaan idin wadnaa sheega aad iyo aad u cajiiba sheekadan waa ujeedaan waa ninkan tuuga dhala xariifka dhala ayaa wuxuu daba taagan yahay gabadhan indhoolaha ah gurigiisa ujeedaan way gashay asaga wuxuu dhigay ushi uu watay dhac oo iska furay oo soo galay waa daba taagan yahay dhaca waxay sameynaysaa waa inuu fiiriyo alaabta waa inuu ka dadasho gabadha indhoolo waa indha ma qabto waxay raadinaysaa miiska ee alaabta saaran lahayd ee boorsada ay saaran lahayd usha ay saaran lahayd ninkan gudaha markuu soo galo wuxuu bilaabay baarasho inuu baarbaarto meelaha wax ku jireen ninkan oo ujeedaan kor ayuu furay qaanadii kore alaabtii ayuu furay waa baarnaa ayadoo ujeedaa boorsadeed isma waalin miiska ayay saartay ninkan meesha uu furay wuxuu fiirfiiriyay waa ujeedaan dhac waa furay tartiib waa xariif dhala ninkan aan laga xariifsanayn waa habka wax loo dhac dhan ayuu bartay ninkan waa tuug dhala aan laga tuugsanayn waa xariif dhala aan laga xariifsanayn waa ujeedaan mar walba iska ilaalinayaa dhacata wuxuu iska ilaalinayaa inay isku dhacaan maadaama ayada indhoola ay tahay wuxuu rabaa inuu meesha si tartiiba uu maamushto alaabta uu ka dasho dhulka ayuu koob ugu tuuray dhac ayada waxay raadinaysaa halkay wax ka dhaceen qiyaasaysaa dhulka ay gacanta la raadisay dhac koobka yeeshay ninkan waa ka tilaabsan doonaa dhac uu ka tilaabsaday jag mar walba wuxuu iska ilaalinayaa inuu asaga ku dhaca ayada ku dhacda maadaama ayadisa indha qawinaya indhoola tahay meesha ayuu ka kharaabinayaa ninkan alaabti waa ka daldalanayaa wax ayuu raadinayaa kolley ninkan waa ujeedaan baaritaan ayuu ku jiraa ayadana shaki ayaa galay tuhun ayaa galay waa ujeedaan ayadana waxay raadinaysaa xaggee cilada ka socota ayay leedahay dhulka iyo gacanta waxay usha ku raadinaysaa albaabka ayay fiirinaysaa nalka heshiisa dhax nalka ayay heshiisatay gabadhii waa ujeedaan ayay way shakiya markaan dhab ninkii lugta loogu dhagay dhab waa la qabtay waa hirig bacdii isla gabadhii dhulka ayuu ku tuuri doonaa sidaa ujeedaan waa ka uu darbiyay dhulka ayuu ku tuuray sheekada markaan way cadaatay wuxuu rabaa si aan loo fahmin meesha baalkii yaaleen suufka ahaa ayuu korka iska saaray si aan loo dareemin ay isku dhahdo waxaas wuxuu baa suufkii meesha yaalay dhac waa ujeedaan waa istaagay waa la wareegsaday mar walba suufka ay taanaysaa suufka ay isku dhufanaysaa ileen isaga ayaa qayaanadan sameeyay suufka ayuu gadaal iska mari meesha ugu tuuray dhac isaga ayay garaacaysaa ninkaana waa ujeedaan meesha ayuu kasoo tilaabsaday tartiib ayuu rabaa inuu ku baxsado baasha meesha taalo waa ujeedaan baasha meesha taalo ayuu rabaa tartiib inuu ka baxsado waa culays badan tahay baasha waa ujeedaan tartiib ayuu kula soo baxay laakiin gabadha ma ahan mid sabrayso waa ujeedaa ninkan ma ahan nin quursanaya xariifa ninkan ma bixin isma waalin guriga dhinaca ka mid ayuu jag ka galay ayada waxa wacday booliska ayaa wacday booliska markay wacday waxyar ka bacdi waxa soo galay booliskii oo haadaya waa kan waxay dhacday meelahan ka fiirfiiriya nin baa gurigii soo galay lugta saxda oo guriga waaba kana taaganta inay garaacaysa uu qabtaa laakiin ma ana ayaa lagu yiri meelaha ka fiirfiiriyeen waa raadiyeen baalkii xataa kor ayaa loo qaaday baalkii waa la fiiriyay waxba kuma jiro waxba ma lahan qofta ayada waxba meeshaan laguma arkin si camal ayaa la hadda wuxuu dhahay boolis kale ayuu wacdi iyo kaaliya ayuu yiri kaligiis ayaa marka hor yimid maadaama ay shaki weyn qoftaan qabto boolis kale ayaa loo wacay ninkan waaba kana uu soo baxay dhinac ayuuba galay xataa isma waalin xataa inuu baxaaba u qabtaa ma bixin guriga ayuu gees ka galay budkiisa ayuu rabaa inuu meesha ka qaato si arrintaan loo fahmin dhac budkii ayuu meesha ka qaatay marka waa taxadiiraya waa tuugilan taxadiir weyn ayuu muujinayaa ninkan sidaa ujeedaan boolisku waxay dhaheen anaga banaanka waa soo fiirnay gudahan waxba kuma jira isdeji ninkan waa gadaal ayuu ku jiraa meeshiisa ayuu ku laabtay waa shakii ninkii booliska ahaa meeshii yareed ayuu furay